بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن habeen wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka maxaa cusub waan iskugu soo gudbin doona dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha kale ee ka cusub habeennimadan qodobadaan idinkugu hayna barnaamijka caawana waxaa ka mid ah jenaraal ruusha uu sheegay in israa'iil jiritaankeeda la weyn doono marka uu dhammaado dagaalka iiraan haddaba maxay yihiin cadeymaha uu ku saleeyay jenaraalku xogtiisa way soo xidhatay wakaalada wararka rasmiga ah ee ruushka sababaha hogaamin doona burburka israa'iil iyo godobta ay ka dhaxli doonaan maraykanka iyo nato macluumaadka arrinkan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka maxaa cusub sidoo kale waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka howlgallada militari ee maraykanka ee ka dhanka ah iiraan oo la kulmaya cambaarayn gudaha ah oo si weyn ay u sii kordhaysa islamarkaana dadka kasoo horjeeda dagaalka bariga dhexe ayse soo tarayaan waxaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa mid ka mid ah saraakiisha ciidamada maraykanka oo si weyn ama si toosa u dhaliilay trump waalida iyo go-aanada halista ah ee maraykanka uu ku gelinayo dhiiqada halista ah ee gobolka barnaamijka waxaan kaloon ku eegaynaa caawa trump oo raadinaya sidii uu la kulmi lahaa kim jong un balse ma ku guuleysan doonaa weeye waxa uu ka doonayay inuu sameeyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ee haatan xulafada la ah Vladimir Putin sideese kulan ay yeeshaan suurtagal u noqon karaa xog xasaasi ah ayaynu idinkaga haynaa dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan daqiiqadaha barnaamijka ee caawa soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan aynu ku bilownay sheekada ugu horeysa ee barnaamijka caawa ee maxaa cusub trump ayaa si qarsoon xog uga bixiyay kulan ee foolka fool ah oo uu la yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa cadaadis ku saaraya la taliyayaashiisu inay diyaariyaan kulan uu la yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ee kim jong un sida ugu dhaqsiyaha badan sanadkan sida ay sheegeen saraakiil maraykan ah ujeedadu waxay tahay in dib loogu soo nooleeyo dadaaladii diblomaasiyadeed ee trump intii uu xafiiska hayay xilligiisii koowaad kuwaasi oo kim kaga dhaadhicinayay inuu ka tanaasulo barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkiisa saraakiishu waxay sheegeen in trump uu si gaar ah uga hadlay qabaqaaminta wadahadallo foolka fool ah oo kim la yeesho inta lagu jiro safarkiisa soo socda ee aasiya kulankaasina waxa uu dhici karaa bisha november xilliga ay hogaamiyaasha dunida isugu imaanayaan shirmadaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee aasiya ee pacific ee ebek oo lagu qabanayo magaalada shenzhen ee shiinaha wargeyska the wall street journal ayaa sheegay in inkastoo aan weli si rasmi ah loo bilaabin qorsheynta kulanka haddana rabitaanka trump ah inuu mar kale la kulmo kim uu muujinayo inuu si weyn u raadinayo guuri siyaasadeed oo weyn oo dibadda laga gaaro xilli uu ilaa iyo hadda ku guuldareystay inuu guur ka gaaro arrinta iiraan iyo dagaalka bariga dhexe rajo badan oo laga qabo horumar ma jiro inkastoo trump uu u arko kulan kale oo labageesood ah fursad dib loogu furayo wadahadalka kuuriyada waqooyi haddana falanqeeyayaasha iyo qaar ka mid a saraakiisha maraykanka ayaa sheegay inaysan filaynin wax horumar weyn ah kuuriyada koonfureed waxay taageersan tahay in washington iyo pyongyang ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed iyadoo rajeynaysa in intaasi ay xasilooni ka dhaliso gobolka hayeeshee falanqeeyaasha iyo saraakiisha maraykanka ayaa ka digay in heshiis aan wanaagsanayn oo ku dambeyn dhaawici karo xiriirka maraykanka iyo xulafadiisa gobolka gaar ahaan kuuriyada koonfureed waxaana trump uu horey isugu dayay in kim uu la kulmo intii lagu jiray safar uu aasiya ku mariyay sanadkii hore isagoo wariyaasha saarnaa diyaaradda madaxweynaha la socday ay fariin gaarsiiyaan inay muujiyaan rajadiisa ku aadan in wadahadallo la qabto uu sheegay sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka pyongyang ayaa xilligaasi tilmaamtay in qabanqaabada dhinaca saadka iyo howlaha farsamo ay aada u adkeyd in muddo gaaban lagu diyaariyo kulan ay yeeshaan labada hogaamiye sabtidii trump ayaa baraha bulshada waxa uu soo dhigay sawir isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyiga isagoo sheegay in xiriirkoodu uu yahay mid aada u wanaagsan waxaana uu bartiisu ku qoray inkasta oo sawirkan gaarka ah uu wejigeena ka muuqdo mid aan saaxiibtinimo lahayn haddana waxaa jira sawiro badan oo aan ku dhola cadeynayno ayuu yiri kim jong un iyo anigu xiriir aada wanaagsan ayaynu leenahay laakiin axadii trump ayaa baraha bulshada ku daabacay amar uu ku doonayay in qayb ahaan la yareeyo dholotusyada militari wadajirka ah ee maraykanka iyo kuuriyada koonfureed
Trump waxa uu go'aankiisa ku sababeeyay laba arrimood oo muhiim ah. Marka koowaad, xiriir shakhsiyadeed oo uu la leeyahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo rabitaankiisa ah inuu ka fogaado dirista fariimo militari oo Pyongyang ay u arki karto kuwo kicinaya xaaladda. Marka labaad, waxa uu diiday in uu sii wado waxa uu ku tilmaamay qarashaadka badan ee Maraykanka uga baxa dhulasyada militari ee wadajirka ah ee uu la sameynayo Seoul. Qoraalka uu ku daabacay bartiisa ayuu madaxweynaha Maraykanku ku sheegay in dhulasyada lala sameeyo Kuuriyada Koonfureed ay qaali yihiin isla markaana Maraykanku uu qaado qayb weyn oo qarashkaasi ah. Waxaana sidoo kale uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay u dirayaan fariin gebi ahaanba colaadeed, inkastoo uu ku dooday in Kuuriyada Waqooyi aysan khatar ku ahayn Maraykanka sida uu hadalka u dhigay. Trump waxa uu sidoo kale xusay in Seoul aysan doonayn inay ku biirto howlgallada militari ee ka dhanka ah Iiraan. Trump waxa uu sidoo kale Kim la kulmay muddo 3 jeer ah taariikhdiisa. Kulankii ugu horeeyay waxa uu ka dhacay 2018 magaalada Singapore. Labadooduba waxay mar kale ku kulmeen caasimadda Vietnam ee Hanoi sanadkii xigay, balse Trump ayaa ka baxay wadahadaladii kadib markii Kim uu diiday inuu ogolaaday in gebi ahaanba la burburiyo barnaamijkiisa nukliyeerka. Kadib madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sanadkii 2019 qabanqaabiyey kulan ka dhacay aagga militariga ka aagan DMZ ee u dhexeeya labada Kuuriyo, balse kulankaasi waxa uu ku guul daraystay inuu jabiyo ismariwaaga u dhexeeya labada dhinac ama labada hogaamiye ee Trump iyo sidoo kale Kim Jong Un. Waa hagaag markan aynu gudaha Maraykanka xaggiisa u weecano. diidmada dagaalka Iiraan ee gudaha Maraykanka ayaa isa soo taraysa iyadoo sii kordhaysa, waxaana haatan saraakiisha Maraykanka qaarkood ay ka hor imaanayaan howlgallada militari ee Maraykanku uu ka wado gobolka. gaashaale sare oo ka tirsan ciidanka cirka ee Maraykanka oo lagu magacaabo Jason Watson ayaa waxa uu sheegay in diyaar uu yahay inuu qaado cawaaqib kasta oo ka dhasha dhaleecayntiisa madaxweyne Donald Trump iyo mucaaradnimadiisa dagaalka Iiraan oo kasoo horjeedo. waxaana carabka uu ku adkeeyey inuu heylanaantiisa dastuurka Maraykanka iyo walaaca uu ka qabo mustaqbalka dalkiisa ay ku kallifeen inuu si cad u muujiyo mowqifkiisa. Watson ayaa bishii hore ka qayb galay mudaharaad ay kusoo qabanqaabiyeen isbahaysi u ololeynayay in Trump xilka laga xayuubiyo, isagoo uu xiran dareeskiisa militari gacantana ku sitaa boorada ay ku qoran yihiin xilka ka xayuubiya waa lagu helay dembiga xilka ka qaada. tanina waxay timid kadib markii uu sanadkii hore u galay mucaaradad socotay 22 maalmood uu ka cabirayay sida uga soo horjeedo madaxweynaha, balse xilligaasi uu qariyay aqoonsigiisa. haddii aanan nafteyda safka hore gelin, arrintani waxay noqonaysaa sawaxan keliya, ayuu Watson u sheegay CNN isagoo intaasi ku daray waxaan wax ka bedeli karnaa waxa ka dhacaya dalkeena haddii aan diyaar u nahay inaan qiimaha bixino. sargaalkan ayaa wajihi kara ciqaabo ku salaysan xeerka cadaaladda militariga Maraykanka, kaasi oo ka mamnuucaya ciidamada inay hadallo meel ka dhaca ka jeediyaan madaxweynaha oo mas'uuliyiinta kale ee dowladda ka tirsan. waaxda ciidanka cirka ayaana sheegtay inay baarayso waxa ka dambeeya mudaharaadkiisa iyo ka qaybgalkiisa. ciqaabaha uu wajihi karo waxaa ka mid noqon kara ka saaris sharaf darro ah oo militariga looga saarayo, luminta xuquuqo iyo gunooyin ciidanka uu ku lahaa iyo xabsiyo qaadan kara bilo. Watson waxa uu sheegay inuu isweydiiyey ka hor mudaharaadkiisa waa maxay qiimaha ugu horeeya ee aan diyaar u ahayn inaan bixiyo. waxa uu carabka ku adkeeyey in dhaartiisa ay ahayd inuu ilaaliyo dastuurka ay ka mid ahayd sababihii ugu waaweynaa ee ku kallifay in uu hadlo. qof kasta oo Maraykan ah waxa uu dhihi karaa dowladani lama aqbali karo, waxaan rabnaa mustaqbal wanaagsan carruurteeda, waxaan rabnaa inaan siino dal ka wanaagsan kii aan anagu dhaxalnay, ayuu yidhi. kadib markii uu ka qayb galay shir jaraa'id, Watson waxaa xiray booliiska Capitolka, waxaana xabsiga lagu hayay habeenkii oo dhan ka hor inta aan eedda la laabin ama lagala laabanayn. intaasi kadibna booliiska ciidanka cirka ayaa gacanta ku dhigay, waxaana loo gudbiyey saldhig military. Watson waxa uu mar kale ku celiyey dhaleecayntiisa dagaalka Iiraan ee Maraykanka uu ka wada bariga dhexe, isagoo sheegay in natiijooyinkiisa hore loo sii saadaalin karay islamarkaana Trump uu doortay in dagaalka uu galo inkastoo horey looga digay dhibaatada ka imaan karta. waxa ka dhacaya dagaalka Iiraan waxay ahayd arrinta istiraatiiji ahaan si weyn loo sii saadaalin karay. dad badan oo iyaga khibrad badan u lahaa ayaa ogaa in si xun uu ku dhammaan doono, haddana isaga oo Trump uu la jeeda ayaa doortay in uu sameeyo dagaalkaasi, ayuu yiri. waxaana intaasi uu ku daray in dagaalku uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka Maraykanka iyo gardaro, isagoo oo la barbar dhigay dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine. waxaana si toos ah u weeraray madaxweynaha Maraykanka, waxaana uu yiri Watson
uu nagu fashilmay isagoo intaasi ku daray keliya ma ahan inuu ku fashilmay inuu madaxweyne noqdo balse waxa uu si cad u jebinayaa dastuurka Mareykanka waxaana uu ku xadgudbayaa sharciga waxa uu ku lug leeyahay musuqmaasuq baahsan waxaana uu dilayaa Mareykan badan taasna annagu ma aqbali karno waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socota warbixinta ku saabsan cadeymaha loo cuskaday in Israa'iil jiritaankeeda uu meesha ka bixi doono kadib dhamaadka dagaalka Iiraan iyo dhibaatada reer galbeedka iyo Mareykanku ay ka dhaxli doonaan taasi oo uu sheegayo ama warbixintaasi oo uu ku cadeynayo jiritaanka arrimahaasi generaal Ruush ah waan eegi doonaa balse marka hore aynu ku hakarno qadar xayeysiin ah soo dhawaada markale daawadayaal habeen wanaagsan weli waxaad daawanaysaan barnaamijka maxaa cusub oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTubeka, Twitterka iyo Telegramka idinkoo warar degdeg ah macluumaadyo kale iyo faallooyinka aqrisan kale oo ka heli karaa bogga aynu internetka ku leenahay ee ka dhigo meelkaaga wararka hagaag aynu haatan sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka weecanayo arrin la yaab leh Israa'iil ayaa waxaa la sii saadaaliyay inay meesha ka bixi doonto kadib dagaalka Iiraan iyadoo generaal Ruush ahi saadaashiisa uu ku saleeyay arrimo dhowr ah taliye sare oo ka tirsan ciidamada Ruushka ayaa tilmaamay in Israa'iil ay burburi karto ama ay meesha ka bixi karto gabi ahaanba taasoo uu ku sameeyay dagaalka hadda socda iyo sidoo kale xiisadda sii xoogeysanaysa ee gobolka bariga dhexe ka jirta waxa uu sheegay in Tel Aviv ay si xad dhaaf ah u qiimeynayso awoodeeda isla markaana xisaabtan qaldan ay ugu dambeyn u horseedi doonto burburkeeda sida caadiga ah taliyaha militariga ee Ruushka lagu magacaabo Abtiya Leonov oo ah ku-xigeenka madaxa waaxda guud ee siyaasadda iyo arrimaha militariga ee ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa sida ay soo xigatay wakaaladda wararka Ruushka ee taas waxa uu yidhi waa inaan fahamnaa in dagaalka bariga dhexe uu sii kordhi doono waxaan u malaynayaa in gaar ahaan ujeedada Israa'iil ay tahay inay colaadda sida ugu badan u sii kiciso isla markaana ay labadaba waa Mareykanka iyo NATO ay si aad ugu soo jeedo dagaalka Aladinov ayaa sidoo kale waxa uu ah taliyaha ciidamada gaarka ah ee Ruushka ayaa sharaxay in arrintan ay ku wanaagsan yihiin ugu dambeynna waxay si xad dhaaf ah u qiimeyn doonaan awoodooda kadibna waxay xoojin doonaan inay noqdaan dowlad jirta saadaashan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli ay Tehran iyo Washington ay isdhaafsanayaan hanjabaado iyadoona sidoo kale oo jiro ismarwaa ku yimid wadahadaladii lagu doonayay in lagu soo afjiro dagaalkii soo bilowday 28 Febraayo markii Israa'iil iyo Mareykanku ay duqeymo gardaraha ku qaadeen Iiraan wargeyska The Financial Times ayaa Arbacadii maanta ahayd waxa uu sheegay isagoo oo soo xiganaya xidho ku dhow dowladda Iiraan in Tehran ay tixgelisay qorshayaal lagu beegsanayo hantida iyo saldhigyada militari ee Mareykanka iyo Yurub haddii madaxweyne Donald Trump uu bilaariyo baaxadda iskoorimaadka ama uu fuliyo hanjabaadihiisa ahaa in la beegsan doono kaabayaasha muhiimka ah ee Iiraan wargeysku waxa uu sheegay in ciidamada Iiraan ay ka wada hadleen suurtagalnimada ah in la weeraro danaha Mareykanka ee dalalka koonfurta bari ee Yurub dhaca oo ku jiro dalka Bulgaria kadib markii la isku raacay in saldhigga diyaaradaha ee Izmir loo adeegsado shidaalsiinta diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee la qorsheynayo in howlgallada ay ka fuliyaan Iiraan qiimeyntanina waxay muujinaysaa isbeddel sii xoogeysanaya oo ka dhex jira hoggaanka Iiraan taasi oo ah in la kordhiyo qarashka iyo cawaaqibka uu Mareykanku la kulmi karo haddii iskoorimaad kasta oo suurtagal ah oo Iiraan ku qaado tanina waxay kusoo beegmaysaa ama kusoo aadaysaa iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ay sii daciifayaan islamarkaana xabad joojintii ay dhammaatay Tehraanna ay sii kordhinayso shakigeeda ku aadan in Washington lala gaaro heshiis kale oo waara waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka maxaa cusub oo si toos aad uga daawanayseen HBN Online TV si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadkaanu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada kala duwan ama aadan hore ugu xidhnayn nagu soo biira sidoo kale waxaan idin xusuusinaynaa inaad kusoo biirtaan baraha internetka ee kala duwan ee telefishinka ar oo aad ka heli doontaan xogo xiiso badan tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idin leenahay sidaas iyo amaana